السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برشاد الصومالية أين داوانيسو موضوعنا عاو وحان ku soo qaadanaynaa walaalaha Soomaaliyeed ee gacanta cadawga ku jiro ee jooga dalka Liibiya uuna haysto ninkii xaasidka ahaa oo nooc walba leh ee la yiraahdo Magafe marka qof walba walaala oo damiir leh ee u damqanaya dadka walaalihiisa ah caawa markii aan live ka fiirsaday siiba aan Facebook ka arkay gabar Soomaaliyeed oo la jirdilaya iyo wiil Soomaaliyeed oo lagu jirdilaya dalka Liibiya iyo kuwa kale haddii aan nahay dad walaalo ah oo inagu jirto beer dhaxaya oo aan damiir iyo damqasho aan leenahay walaaltinimo Soomaaliyeed waa inaan u damqanaa dadkaas walaalaheena waxaan leenahay wax yar iyo wax badan oo isku darno wax badan ayay dhashaa maantana waa Ramadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala masaakiintaas musaafurka ninka u naxariisto أجرك وهلي وجا الدنيا أقرب وكل لبانيا إلهي دمبجي سو وجود فيها وضد ولا له هنا ولا ده شيء يعني عدو إيه كجيران هير وحلو قدر دل إيو كل وأنت شرف حموحة نوعة إلى أركا كبر الصوماليات ولا شيء نأه واتاس إلى داودا أنت اللوجها اللي جحرق يا الجراعية مركا شرف نومها وحندي لهن أنت الدم خنيسة cajaladeyda haddii aan shidi lahaa anigu nusrkeyga diirka ayaa ikacay marka $50 qof walba oo ilaahay dartiisa u bixiyo lagu badbaadiyo dadkaas way badan yihiin haddii laakiin aan isku wada darno gacmo wada jir ayay wax ku geeyaan waa in loo damqadaa waa dad Soomaaliyeed waa dad walaalaheena yaa loo fiirinin si kale wallahi inaan aqoon u lahayn laakiin waxaan ka damqaday markii aan fiiriyay ummadda Soomaaliyeed wiil kale oo Soomaaliyeed waa ka jirdil uu ku socdo marka waxaan leenahay aan u damqano gabadhaas iyo wiilkaas iyo inta kale oo maanta marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed waxaa ku dhacay nasiib darro ku dhacday markii dalkoodii burburka uu ku dhacay maantana dalkiina waad ogtihiin dhibaatooyinka ka jirto dawladdu waxay ku mashquulsan tahay dalkii iibintiisa maanta waad ogtihiin qadar iyo waxay haysto waad maqasheen ayaan u maleynayaa iyo Sacuudiga oo ku tartamaya dalkeenii hooyo waa nasiib darro marka waxaan leenahay qof walba oo walaala oo damqanaya damiir damqanaya uu ku yaal waxaan leenahay aan u istaagno dadka walaalaheena ee nala dhashay marka waxaan leenahay aan u kacno waa dad nala dhashay oo walaalaheena ah aan u diirnaxno aan u damqano maxaa yeelay qofkan walaalka ee adduunyadu waxay tahay male waa laga tegayaa waxaan ka qaadan doonaa maradaas cad iyo godkaas qofka walaalka maalinta uu wax kaaga baahanya ama garab uu kaaga baahanya waa maanta oo kale wuxuu garab kaaga baahanyaa maanta oo kale ayuu garab kaaga baahanyaa walaalayaal aan u naxno qof walbo damiir leh ee damiir walaaltinimo iyo damqana ay ku jirto waxaan dhihi lahayn aan u damqano dadkaas walaalaheena ilaahay subxaanahu wa tacaala waa bil barakaysan khayrkeeda wuuna siinayaa marka qof walba jecel wuxuu ugu hagaajin karaa Magafe anigu teleefankooda ma hayo caawaan arkay alxaq min sadaq Allahu akbar Allahu akbar alxaq min sadaq الله أكبر أشهد waxaana laga doonayaa inaan la damqano dadkaas walaalaheena waxaana laga doonayaa inaan u jiirnaxno maxaa yeelay adduunyadan waa laga tegayaa waxay tahay male waxa aan ka raadinayno ma yaalaan marka qof walbo damiir leh ee damqanay ee damiir dadnimo ay ku jirto waxaan dhihi lahaa hallo gurmada dadkaas walaalaheena maanta maalin ahayn ayaan dareemi doonaa waxay ku sugan yihiin iyo kulli dadkuna waa wada badan yihiin marka maanta haddii qof walba oo $20 ama $50 oo dadkaas u xawilo dadkaas ilaahay waa ka soo bixinayaa dhibka inta kaloo soo socotana waxaan kula tali lahaa ha ku tusaale qaataan dadka walaalaheena meesha loo soo orday wax yaalla male marka aan u damqano aan u diirnaxno anigu caawa wax kale aan uma soo korin siyaasadna ka hadli maayo caawo kale waxa waaye
waa in waxaan la damqanayaa dadka walaalaheena ee meel walba joogaan. ummad walba oo muslimna waxaan leeyahay sidoo kale sidaas oo kale hanala damqato. maxaa yeelay adduunyadan waxay tahay male, gudkaas aakhirada ayaan ka galaynaa. maalinaa maalin nala weydiinayaa. wixii siyaasadna waxaan ka hadli doonaa habeen dambe oo waxyaabo badan aan kusoo qaadan doono. marka caawa waxaan aada iyo aada uga nacsanahay dadkaas nala dhashay ee nolosha noocaas ay ku jiraan, ee qof walba oo walaala inuu u damqado laga doonayo, ee garanayo damiir dadnimo ama nixid ay ku jirto inuu u istaago. waxay ku xeran yihiin magaaladii Libya, waa la dilaya, waa la diri jiraya, ayagoo lacagtaas ayna dhiibin soo dhaqaaqi maayaan. marka yaa laga doonayaa ee walaaltinimo iyo naxariis dambe ilaahay inuu u jibsho laga rabaa waa annaga. marka ilaahay bisha barakeysan qeyrkeeda hana siiyo, aan u damqano dadkaas nala dhashay ee walaalaheena. qof walboo damiir lena waxaan jeclaan lahaa inuu ka hadlo arrimaha noocaan caawa. maxaa yeelay caawa aada iyo aada ayaan u damqaday wallaahi iyo bilaahi. afurka aan afuray markaan Facebook galay, arrimo siyaasadeed taa in laga hadlo caawo kale maahan. waxaan aada ugula damqaday dadkaas walaalaheyga, waana la dhasheen. wallaahi iyo bilaahi adduunyadan wax laga qaadayo male, wallahi wax laga qaadayo male, uma wallahi wax laga qaadayo male. godkaasaa laga galaya. marka waxaa idin dhihi lahayn caawa berisu waxay ka bilaabo nin walbo magafa adareyskiisa iyo telefonkiisa waa yaqaanaa. qof kale hataa yuu ku xawilin. ilaahay sadaqaha uga dhigo $50 wuxuu u awoodo oo diri kara ha u diro. wallaahi way badan yihiin, wallaahi iyo bilaahi. hadda waxaan kaloo idin tusinaya oo aan aada uga naxay gabadhan maskiinta sida loo garaacay ila daawada. aadaan uga naxay wallahi, wallaahi iyo bilaahi. waxyaabaha aan aada iyo aada aan uga naxay kamid tahay. qof walboo damiir lana gabadhan ha ila daawado caawa. maskiintaas la jirdilayo waa gabar Soomaaliyeed. fiirada siday dhehaysa, fiir ilaahay ha laga boqo. ilaahow adaam hadda iskale. walaashaa ka soo qaada inay tahay. fiiri waa walaasha, waa hooyada, waa xaaskaaga. damiir naxaay hadduu kugu yaala eeday leedahay. ninka tumaayo waa Soomaali hadduu fiiri miyaana diir damqanayna aan lahayn. maantoo kale ayaa lagu fiirsan. waa qof dumara, dumarku waa daciif, waa masaakiin. wax walba qofka ayaa loo fiirin, hala fiiriyo maantoo kale haloo istaago. walaalayaal dhibtaasaan haysato. dowlad la-aanta iyo dhibta markay nagu dhacday waxyaabay dhibka ee nagu dhacay kamid tahay. waxyaabihii waddankeenii dhibka u horseeday kamid tahay. marka waxaan dhihi lahayn dhibaatadii waddankeenii ku dhacday kamid tahay. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka tuugaynaa in ilaahay ummadda Soomaaliyeed u gargaaro. walaalayaal qof walbo dadku waa badanyihiin. wiilal kaloo walaalahayna waxay ku xiran yihiin Seychelles. bil walbo haddii $20 oo qofka meesha dhigo waxay tartamale $20 koob shaha lagu cabaa Yurub waxay ka tahay male. wiilal kaloo 15 wiil oo ila soo xiriiraa jira ayagana Seychelles ku xiran. anigu ma dhahayo, laakiin teleefoonaadkoodana waa idin raadinoyaa. Facebook aan soo saari doonaa oo dhiban ayaa jiro idin naftirkeeda in wax laga qabto u baahan. wallaahi iyo bilaahi xaaladooduna ay aada iyo aada u xun tahay. horena waa uga hadlay. kuwo kalena waa kuwa Libya taagan yihiin. dowlad iyo dad ay sugayaan male. dowladda aada isku haleyneyseen aada sugayseenna waataa ay iska damaashaadaysa, iska wareegeyso. shacabka waxa isu naco maanta oo lagu fakaday waa qurba joogta. qurba joogta meel walba aad joogtaan, Latin America, Europa, koonfur Africa, carab, Yurub, Australia. waxaan idin leeyahay walaalihiina gacanta u taaga. wallaahi iyo bilaahi uma wallahi bil ramadaan waa liibaanaysiin. wallaahi iyo bilaahi ilaahay adduunya aakhira waa ugu liibaanaysiin. dadkaas walaalihiina gacanta u taaga. war dhiigga aan iska qaadno, aan u damqano dadkaas walaalaheena. marka warkaygana inaa caawa kusii dheeraada ma rabin. caawo kale farxad iima taalo. dhiiggayga siduu yahay qof walba asigaa garanaya. qof walbana wuxuu ahaaya caawa hadduu damiir leeyahay jeebkiisa ayuu furayaa. waa ku bixinaa fan iyo xaflad waa ku bixinaa. laakiin dadkaana caawa naga dhib badan. marka inaan u fikirno aan u damqanay aan laga doonayaa.
marka waxaa idin leeyahay meel baa joogtaan soomaaliya ha noolaato waa su naxariisan oo arrimaha noocan aan ka wadaagno wax kale ha jiraan dirb wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka wixii telefoon waa idiin soo raadi doonaa waa soo dhigayaa laakiin magafe waa la wada yaqaanaa magafe qof walba la xiriiro gabadhaas iyo wiilkaas iyo wiilal kalaa jiro iyo dad kale soomaaliyeed wixii bil kastoo haddaan 20 isku darno waa bixin karnaa yalla fiirina adduunyada waa laga tegayaa awlaadiina waa ku liibaynaa anagana waa ku liibaynaa naftiina waa ku liibaysaa ilaahayna waa noogu naxariisanaya gaaladana ilaahay waa nooga qabanaya marka khayr allah idin siiyaan leenahay meel baa joogtaan soomaaliya waxaa idin leeyahay khayr allah idin siiyo wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah